bismillaahi raxmaani raxiim kula wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo tabin ku saabsan wararka gobolka bariga dhexe faqadaada diblomaasiyadda iyo lafagurka dhacdooyinka caalamka qodobadaan idinkugu haya caawa oo ay taariikhdu 9 tahay bisha May sanadka 2026 waxa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maraya imtixaan siyaasadeed oo aad u adag iyadoo warar soo baxaya ay tilmaamayaan haddii aan heshiis uusan la gaarin dowladda Iran ka hor 14 May oo Shiinaha booqan doono in uu wajahayo wajigabax weyn oo haysta iyo waliba Beijing oo dhibco siyaasadeed oo dhinaca diblomaasiyadda qaadan doonta warbixin taxliil oo arrintaasi ku saabsan ayaan rabaa inaan idinkula wadaago barnaamijka dowladda Iran ayaa sidoo kale ka hadashay hindisaha Mareykanka uu soo gudbiyay waxana ay tilmaamayaan in ay jiraan qorshayaal waaweyn oo ka soo socda dalka Iran warkooda ayay diblomaasiyadda dadka bartay ku fasirayaan in uu yahay mid kulul oo ay wax badan u laaban yihiin Trump oo waraysi siiyay wargeys ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo arrinta Iran tan oo dad badan ay ku tilmaamayaan in isbedel weyn oo xaqiisa ah uu dhacay isagoo dhinaca kale weerar ku qaaday wadamada Yurub ballan qaaday in ay suuragal tahay in dalka Talyaaniga uu ka saari doono qaybo kamid ah ciidamadiisa intaan barnaamijka idinla joogo akhyaarta ay nala socotay waxaan sidoo kale la faguri doonaa wararka gobolka iyo waliba dhacdooyin waaweyn oo xoogan oo ay kamid yihiin ciidamada Mareykanka oo ballan qaaday inay kor u sii qaadayaan go'doominta lagu hayo wadanka Iran ee dhinaca badda xilli maalmihii la soo dhaafay dhacdooyin ay ka dhacayeen marinka Hormuz laakiin hadda xaaladiisu ay degan tahay xaaladda Mujtaba Khamenei ayaa lagu waramayaa inay soo hagaagayso iyadoo dowladda Iran markii ugu horeysay ay tilmaantay inuu dhaawac soo gaaray waa ninka ugu sareeya wadankaasi ee bedelay Ayatollah Khamenei soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara aadka Mareykanka Donald Trump ayaa maraya imtixaan siyaasadeed oo aad u adag iyadoo wadanka Iran uu hadda door bidayo in uu heshiis la gaaro Trump madaxweynaha dalka Mareykanka oo dagaalka qaaday ayaa hadda doonaya waji uu kaga badbaado dagaalkaasi in uu mar kale dib ugu laabto maadaama wajigabax xoog leh oo hadda ay ishayaan cadaadis siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed ayaa ku sii kordhaya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump si uu heshiis kama dambaysa ula gaaro baa la yiri dalka Iran ka hor booqashada la qorsheeyay inuu gaaro magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha 14 bishan May aynu ku guda jirno oo 4 maalin oo kaliya ay naga xigaan iyadoo falanqeeyaal badan ay ka digayaan guuldarro ku timaada wadahadalka Washington ay la gali karayso xaalad ay ku gali karayso xaalad daciif ah marka ay la kulmayso Shiinaha haddii aan heshiis la gaarin intaasi ka hor diblomaasi hore oo Mareykan oo la yiraahdo Daniel Shapiro ayaa sheegay in Mareykanku uu doonayo in xiisadu ay degto baalire ka hor safarka Shiinaha si uusan ugu muuqan hogaamiye ka dalbanaya caawimaad madaxweynaha wadankaasi Shiinaha Xi Jinping Tehran si ay ula heshiisiyo Trump madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa rajo ka muujinaya heshiis uu la gaaro Iran si loo dhameystiro buu yiri maalmaha soo socda isagoo sheegay in fursada heshiis ay gaari karaan ay iminka u muuqanaysa inay tahay mid aad u wanaagsan waxaan uu carabka ku dhuftay haddii 3 qodob midkood laga helo dowladda Iran inay ka go'an tahay inuu heshiis qaadan karo inay Iran wareejiso buu yiri uraniumkeeda ay aadka u tayeynaysay in ay joojiso howlaha ka socda xarumaha nuclear-ka ee dhulka hoostiisa inay Tehran ogolaato inay sii wado inay Tehran ogolaato ama aysan ogolaan baa la yiri sii wadida kobcinta uranium-ka heer hoosana la geeyo talaabooyinkaasi oo Mareykanku aad u dalbanayo dhinaca kale Trump ayaa sheegay in heshiis lala gaaro Mareykanka uu fududeyn karo baa la yiri qaar kamid ah cunaqabataynta Iran saaran taas oo ay kamid tahay xayiraadda marinka Hormuz uu qaadayo iyo lacagaha dowladda Iran dunida uga xayiran oo la sii daay karo dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa iyadoo Trump hadalladaasi ay ka soo baxayaan waxay dhinacooda ay tilmaamayaan in ay tafaasiil ka bixiyeen hindisaha la doonayo inay ka jawaabaan
si nabad looga gaaro gobolka bariga dhexe hadda waxay ku xirnaan kartaa jawaabta ka imaanaysa dowladda jamhuuriyadda islaamiga. dowladda Iiraan ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto baaliyada dib u eegista ay ku sameyn doonto jawaabta Mareykanka ee ku aadan soo jeedintii ay Tehran horey u gudbisay, iyadoo ay muujisay baaliyada shaki weyn oo ku saabsan tillaabooyinka Washington ee gobolka. la taliya sare oo ka tirsan xafiiska warfaafinta ee wasaaradda amuraha dibadda Iiraan oo la yiraahdo Ali Safari ayaa sheegay in Tehran ay heshay jawaab rasmi ah uga timid Mareykanka, isla markaana ay hadda si taxadar leh u qiimeynayaan oo aysan dowladda Iiraan si degdeg ah u jawaabi doonin. waxaan helnay jawaabta Mareykanka ee ku saabsan soo jeedinta Iiraan. waxaan hadda ku guda jirnaa daraasaadkeeda, ayuu yiri Safari oo arintaasi kala hadlay warbaahinta, isagoo intaa ku daray in tillaabooyinka Mareykanka ee Strait of Hormuz ay sii xoojinayso buu yiri kalsooni darrada Tehran ee ka taagan Washington ay ka qabto baa la yiri, maadaama dowladda Mareykanka aan la aamini karin. mas-uulkan ayaa sheegay in Iiraan ay hadda arintan ay ugu magac dartay dib u soo celinta kalsoonida Mareykanka, isagoo carabka ku adkeeyay in kalsooni darrida u dhaxaysa labada dhinac ay tahay buu yiri mid aad u qoto dheer oo aan degdeg loo aamini karin. sidoo kale Tehran ayaa sheegtay inay diyaar u tahay dhammaan suurtagalnimada ka dhalan karaysa xaaladda gobolka, isagoo hoosta ka xariiqay kana jawaabay tallaabo kasta uu ku tilmaamay daandaansi Mareykan oo ka dhacay marinka Hormuz inaan laga aamusin oo jawaab ku filneed laga bixiyay, haddii ay soo laabatana laga bixin doono. Iiraan ayaa sheegtay in mudnaanta ugu weyn ay tahay in ay joojiso dagaalka ka socda gobolka, in dib loo furo marinka Hormuz iyo in la soo afjaro waxa ay ku tilmaantay faragelinta iyo xanibaadda badeed ee wadankeeda la saaray. Safari ay waxa uu sidoo kale tilmaamay in Tehran ay arintan furitaanku ay ula xiriirto baaliyada xaaladda gobolka, gaar ahaan dalka Lebanon oo heshiis la siiyana ay tahay midda ugu weyn ee hadda dalkaasi uu baadi goobayo. isla wararka gobolka bariga dhexe iyo deegaanada ku dhow ayaan ka hadli doonaaye madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka baaqsaday su'aalo ay weydiiyeen wariyaal reer galbeed ah oo ku saabsan arrimaha wadanka Iiraan. Trump ayaa waxa uu yiri xilligan diyaar uma ahi inaan ka hadalno arrinta Iiraan, laakiin waxa iga weydiiya arrimaha kale aad u baahan tihiin, taas oo muujinaysa in Trump jahwareer adag oo siyaasadeed uu galay tan iyo markii dagaalka Iiraan uu laga hadlay 28 Febraayo. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uusan xilligan doonayn in uu wax faalla ah ka bixiyo jawaabta Iiraan ee la xiriirta wada hadalka iyo soo jeedinta u dhaxaysa labada dhinac. waraysi uu siiyay wargeyska Talyaaniga ee Corriere della Sera ayaa waxa uu Trump ku sheegay in uu wali ka fiirsanayo xaaladda guud ee la xiriirta Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub, isagoo sidoo kale ka hadlay joogitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Talyaaniga in ay yihiin kuwa u baahan inuu halkaasi ka daadgureeyo. Trump oo wargeyska la hadlay waxa uu yiri ma jirto rabitaan aan hadda u qabo inaan ka hadlo jawaabta Iiraan, taas oo muujinaysa in aqalka cad wali uu qiimeynayo xaaladda ka hor inta aan la qaadin baaliyada tallaabooyin cusub. dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu dhaliil u jeediyay dowladda Talyaaniga, isagoo sheegay in Roma aysan u muuqan garab istaagii Washington ay uga baahnayd xilligii Mareykanka uu u baahnaa taageero. Talyaanigu ma aysan joogsan garabkeena markaan u baahnayn, laakiin innaga haddii aan nahay Washington weligeanba waa garab istaagi jirnay, ayuu hadalkiisa ku daray. sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in wali daraasad uu ku hayo suurtagalnimada in ciidamada Mareykanka laga raro qaar ka mid ah saldhigyada ku yaala Talyaaniga. arrintan oo la hirgeliyay saameyn ku yeelan karta haddii la hirgeliyo waxay saameyn ku yeelan kartaa xiriirka difaaca ee labada dal iyo waliba howlgalka NATO ee gobolkaasi. hadalka Trump ayaa ku soo aadaya isagoo hore u sheegay in wadankiisa uu ka saarayo 15% ciidamada Mareykanka ee jooga wadankaasi Jarmalka.
haddii aan wararka Iiraan dib ugu soo laabtana taliska dhexe ee ciidamada militariga ee wadanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay goordhow in ay sii wadi doonaan xayiraadda iyo xisaar ka saaran dowladda Iiraan ee dhinaca badda si loo daciifiyo bay yiraahdeen awoodda dhaqaale ee wadankaasi maadaama uu noqday mid laf dhungasho u noqday Washington. taliska dhexe ee ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay in xayiraadda badeed ee Mareykanka ee uu saaray Iiraan ay si buuxda u sii socon doonto iyagoo qayb ka abaalida cadaadiska lagu hayo Tehran. bayaan ka soo baxay Centcom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanku ay sii wadayaan howlgallada badda si looga hortago maraakiibta ganacsiga ee ku sii jeeda dekedaha Iiraan. tallaabooyinkan cunaqabataynta badeed ee lagu hayo waa ay sii socon doonaan si buuxda ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay ciidamada Mareykanka. talisku waxa uu intaa ku daray in ilaa iyo maanta ciidamada badda Mareykanku ay leexiyeen 58 markab oo ganacsi oo doonaya inay galaan dekedaha Iiraan. waxay sidoo kale carqaladeeyeen ama ay hakiyeen dhaqdhaqaaqa 4 markab oo kale tan iyo 13 Abriil sida lagu tilmaamay war-saxaafadeedkan Mareykanka. sida Centcom uu sheegay tallaabooyinkan ayaa waxaa lagu gol leeyahay baa la yiri in looga hortago marin dekedaha Iiraan oo cadaadis lagu hayo in aanay wax dhaqaale ama badeecada oo dalkaasi uu leeyahay ay sangalin. waxaana xiisadu ay iminka tahay wali mid sii xoogaysanaysa. ugu dambeyntiina waxa la xaqiijiyay dhaawaca soo gaaray Mujtaba Khamenei ayatullaahiga sare ee wadankaasi ee loo bixiyay murshidka hooska sida ay ku qorayaan warbaahinta gobolka qaarkood. la taliye sare oo ka tirsan xafiiskiisa oo la hadlay warbaahinta nidaamkaasi ayaa waxa uu tilmaamay marka la eego 28 bishii aynu soo dhaafnay ciidamada Israa'iil waxa ay dhaawaceen buu yiri kuwa Mareykanku ayatullaahiga hasaatee hadda waa uu ka badbaaday oo dib ayuu ugu soo laabtay shaqadiisa. goobaha uu ku shaqeeyo waxa laga fogeeyay qalabka elektrooniga sida taleefanada, kombiyuutarada iyo agab kasta oo wax lagu basaasi karayo isagoo hadda shaqadiisa si toos ah u wata. arintani waxay qasabtay dowladda Mareykanku inay baadi goob u gasho si ay xal uga raadiso asaate wali waxa muuqata inaan si degdeg ah loo heli karin. habeen wanaagsan khiyaarta ay nala socotay tabintan oo ahayd tii afraad oo aynu maanta ku kulannay qaybtan intaas ayaan ku hakanayaa macluumaadku waa noo sii socon doonaa ee ku soo biira YouTube kan Cabdilcasiis Barrow iyo kan kale ee Barrow Showba. nabadgelyo.